munaasabadan oo ahayd mid lagu taageeraya halganka ka socda gobolka Mudug gaar ahaan degmada Xaradheere iyo deegaanada hoos yimaada ee khawaarijta lagula dagaalamayo sidoo kalena lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha degmada Xaradheere ee gobolka Mudug ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. munaasabadan oo ay soo abaabuleen aqoon-yahanka waxgaradka iyo dhalinyarada ka soo jeeda degmada Xaradheere ee gobolka Mudug ayaa ugu horeyn aqoon-yahanka iyo waxgaradkii madasha ka hadlay waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay sii laba jibaaraan halganka xoreynta dalka gaar ahaan midka ka socda gobolka Mudug isla markaasna aysan ka daali doonin inta khawaarijtu ay ku sugan yihiin deegaanadaasi. soo dhaweynta gudoomiyaha waxaan la qabaa intii horay u hadashay waa guulaysateen ninkii dhintay gobonnimo ku dhintay ragga naga leeday oo dhintay gobonnimay ku dhinteen waana dhimo lahaayeen ma noolaadeen sariirtooday ku dhimo lahaayeen gobonnimay ku dhinteen. gudoomiye soo dhawaaw waxaan isleeyahay soo dhaweyn xafladda waxay ku qoran tahay soo dhaweyn waa ku soo dhaweynaynaa waana ku taageeraynaa waana ku bogaadinaynaa waana ku ducaynaynaa. qaar ka mid ah dhalinyaradii ka qayb gashay kulanka ayaa waxa ay taageereen sida shacabka reer Xaradheere had iyo jeer ay ugu taagan yihiin inay iska difaacaan cadowga isla markaasna ay qayb ka noqdaan dadka Soomaaliyeed ee iska dulqaaday khawaarijta. gudoomiye maxamed yuusuf kulmiye runtii waxqabadkiisa iyo kartidiisa maanta ma raba halkaan inaan ka sheego maxaa yeelay waxay ahayd wax Soomaali u jeeday oo ay marqaati ka ahayd maalintii la bilaabanaysay maalintii la magacaabayay khawaarij haysatay magaalada Xaradheere oo dadka ku gumeynaysa. sidaa darteed gudoomiye maxamed yuusuf wuxuu sameeyay maalintii la magacaabay abaabul galay dadkiisa warkacay magaaladii uu xareystay. agaasimaha maaliyadda gobolka Banaadir Mudane Nuur Kaarshe iyo Cabdixakiin oo ka socday xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa madasha ka sheegay in ay xasuusnaan doonaan shuhadadii dhiigooda ku bixiyay sidii cadawga looga dulqaadi lahaa Xaradheere iyo deegaanada hoostaga isla markaasna ay muhiim tahay in bulshadu ay ka warqabto ubadkii ay ka tageen shuhadadii dhiigooda u horay xoreynta dalka. gudoomiye soo dhawaaw shaqo adag aad ku jirtaa runtii waan bogaadinaynaa shaqadaas culus aad haysid waxaan kaloo rajaynaynaa guud ahaan dadka deegaanka ka soo jeedana inay arrintaas garab horay ugu siiyaan haddana ay ugu siin doonaan oo dadaalka xoreynta kadib dhismaha magaalada waa qadiyadda ugu xooga badan waaye dhismaha magaalada meesha in lagu noolaada la rabaa maahan in lagu jiro xaalad dagaal mar walba ma soconayso. waxaan rabaa si gaar ah inaan u xuso shuhadada ku shahiiday dadaalkii lagu xoreynayay jihaadkii lagu xoreynayay degmada Xaradheere. iyagana waxay naga mudan yihiin inaan niyadda ku hayno inaan xusno inaan ka warhayno inaan u duceyno ehelkooda iyo qoysaskooda iyo carruurtooda inaan la soconno xaaladooda aanan ka warhayno. ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Xaradheere oo madashan si gaar ah loogu soo dhaweynayay ayaa waxa uu sheegay in ay halganka had iyo jeer halkaa ka sii wadi doonaan isaga oo sheegay in aysan xafiisyada ku nasan doonin inta cadawga uu ku sugan yahay qaybo ka mid ah Galmudug. waxaan si khaas ah haddana ugu sii mahadcelinayaa reer Xaradheere oo dhammaan runtii kaalin xoog leh ka qaatay xoreynta degmada Xaradheere la'aantoodna runtii aysan xoreysnaateen degmadan Xaradheere. sida wada ogsoontihiin walaalayaal degmada Xaradheere waa degmo qadiimi ah oo ay ka soo jeedaan madax soo hogaamisay qaranka Soomaaliyeed oo ka mid yahay Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo saraakiil runtii biladgeesi ku leh xoogga dalka Soomaaliyeed waa hal iyo laba iyo saddex aan ku soo kursi karin meeshan mar labaad iyo mar saddexaad runtii degmadu ma ahan degmo maaragtay la dayici karo waa degmo runtii naf iyo maalba loo horay waa degmo ku suntan geesinimo waxaana sababka iska leh ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka
oo geesinimo muujiyey iyada oo walaalayaal sida aad ogtihiin Haradheere ee ka soo hartay aagagii laga xoreeyay Galmudug sida aan wada ogsoonahay ama aan xaqiijiyey ka gudoomiye ahaan hooyo Soomaaliyeed ayaa ku furanaysa tuulooyinka ay haystaan kooxda khawaarijta Al-Shabaab 57 kiis ayaa la soo gaarsiiyey degmada Haradheere mid walbana intii fasax looga raadinayo nimankaas ayay isku dhimatay ama caanigii ka saxiiray ayagoo dhintay oo garaab ah la soo gaarsiiyey waxna waa laga kala waayay waxaana sabab u ah kooxda khawaarijta Al-Shabaab ma aysan helin gargaar degdeg ah oo caafimaad mana lahan wax MCH ma lahan hospital ma lahan goobo waxbarasho ma lahan waa meel ay dadkana ku baadaan xoolaha neefka buuran ay kala baxaan